kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin baa khiyaartan la socotay halkani waa Magan Media waa 9 December sanada 2025 gobolka Minnesota wali waxa ka taagan xaalad cakiran oo markaas u dhaxaysa ciidamada loo yaqaan ICE iyo sidoo kale dadka Soomaaliyeed ee gobolkaasi ku nool akhbaaraadka aanu hadda ka helayno gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis ee xarunta u ah gobolkaasi waxa ay xaqiijinayaan in culays kale oo waaweyn ay shacabka Soomaaliyeed soo food saareen waxa la tilmaamay in ciidamada ICE ee qabanaya dadka sharci darrada ku jooga ama magangeliyo doonka ku jooga dalka Mareykanka ay markan heleen mid ka mid ah ruqsad ay raadinayeen muddooyinkii ugu dambeysay waxa la tilmaamay in ciidamadaasi aysan markii hore xaq u lahayn inay gudaha u galaan goobaha ganacsiyada moolasha iyo sidoo kale dukaamada waaweyn ee magaalada Minneapolis ku yaala halkaas oo la tilmaamay in dad badan oo aan sharci haysanin gaar ahaan dadkii dhawaan galay gobolkaasi ay ka shaqaysanayeen siyaabooyin kala gedisan ay markaasi noloshooda ugu maareynayeen waxa la tilmaamay inay sharciga dalka Mareykanka uu ogol yahay in ciidamadaasi aysan gudaha u galin goobaha ganacsiyada haddii ay noqoto maqaaxiyada haddii ay noqoto dukaamada dharka lagu gadayo iyo sidoo kale dukaamada goobaha ganacsi ee markaasi guud ahaan magaaladaas iyo gobolkaasiba ku yaala hadda waraan u fiicneen dhagaha dadka Soomaalida iyo sidoo kale dadka magangeliyo doonka ka raadsanaya dalkaasi Mareykanka ayaa soo yeeray waxa la xaqiijiyay in xaakim kamid ah maxkamadaha gobolkaasi uu ogolaaday warqad sharciyana uu siiyay ciidamada ICE kuwaas taasoo u ogolaanaysa inay gudaha u galaan goobaha ganacsi haddii ay tahay maqaayad haddii ay tahay meel dukaan dhar lagu iibinayo haddii ay tahay meel sharaab lagu iibinayo nooc dooni oo ganacsi waxa la tilmaamay inay ciidamada ICE hadda ay sharci u leeyihiin sharcigoona u ogolaanayo inay gudaha u galaan hore waxa jirtay in qofka ganacsiga goobta ganacsi iskale albaabka hadduu istaago oo uu yiraahdo warqad ii keena markaasi inaysan haysanin sidaasna qofka gudaha ku jira hadduu magangeliyo doon ahaa hadduusan sharci haysanin hadduu warqadda temporary-ga la yiraahdo ee kumaalgaarka ah uu haysto wax dooniba markaasi aysan ciidamadu xaq u lahayn inuu gudaha maqaayadaas ama markaasi goobta ganacsi ay gudaha u galaan ciidamada ICE tii hadda waa la iskala soo gudbay waxa la xaqiijiyay in ciidamadu hadda ay arintaas sharci haystaan dadka Soomaaliyeed si gaar ah dhalinyaradii dhawaan gashay Mareykanka ayaana arintaas looga digayaa inay feejignaan dheer ay muujiyaan moolka ugu weyn ee Soomaalidu muddooyinkii u dambeysay ku ganacsato lana tilmaamo inay ku yaalaan in ka badan 600 oo dukaan oo dad Soomaaliyeed ay markaasi saameyn ballaaran ku leeyihiin ayaa la sheegay in hadda ciidamada ICE waxa ay doonaan ay ka sameyn karaan oo ay gudaha u gali karaan cidda ay doonaan ay ka qabsan karaan awal waxa ay ahayd inay guryaha ku gargaraacaan dadka sidoo kalena wadooyinka iyo gawaarida ay kala degaan tii waa la iskala soo gudbay hadda waxa ay goobtaada ganacsi ayaa lagu imaanaya waxaana lagu weydiinayaa inaad sharci haysato iyo in kale haddii aadan sharci haysanin markaasna aadan waxaad ku joogto aadan haynin waa hore laga sii qaadaya taasi waxa ay muujinaysaa sidoo kalena ay tilmaamaysaa inay xaaladdu ay marayso baraka malaay halkii ay Soomaalidu dhihi jirtay xaalku waa wuxuu yahay baaqi kala gidsan ayaa soo baxaya oo dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota iyo magaalooyinka waaweyn ee Minneapolis iyo St. Paul ku loo jeedinaya oo la leeyahay intii aad maarmi kartaan waxa wanaagsan inaad hadda guriyihiina ku sugnaataan maadaama goobihii ganacsi ee gabaadka idin ahaa ee aad ka shaqaynayseen ee aad nolol maalmeedkiina ka raadsanayseen gabi ahaanba hadda ciidamadu ay sharci u leeyihiin inay gudaha u soo galaan tani waxa ay sidoo kale xaqiijinaysaa ayaa la yiri cadaadiska xooggan ee madaxweynaha dalka Mareykanka ninka lagu magacaabo Donald J. Trump uu ku hayo dadka Soomaaliyeed nimankan ICE la yiraahdo muddooyinkii ugu dambeysay waxa ay sameynayeen falal aad u xun qof sharci haysta ku aan sharci haysanin iyo sidoo kale ku sharci sugaaba intaba isku si ayay Soomaalida ula dhaqmayeen kaliya midabkiisa iyo inuu Soomaaliya haddii ay ogaadaan waxa ay doonaan ayay ka sameeysanayeen qayladaan arintaasi ka soo horjeeda ayaana guud ahaan dalkaasi Mareykanka ka bilaabatay dad badan oo cadaan ah oo hore siyaasadda madaxweynaha dalka Mareykanka ula dhacsana ayaa nidaamka ay Soomaalida hadda loo takoorayo ka soo horjeestay waxa jirtay in dhawaan halkan aanu ku baahinay gabar Soomaaliyeed oo muwaadinad Mareykan oo passport haysatay oo 24 saacadood u xirnayd ciidamada dalka Mareykanka taasoo la tilmaamay inay kufsi ay u geysteen ciidamada ICE iyadoo hadda la sheegay inay dacwad ku socoto ciidamadaasi oo la dhageysanayo sida ay gabadhaas iyo ficiladii ay ku sameeyeen
dhinaca kale wararka aan gobolka ka helina ayaa waxa ay tilmaamayaan in dhaqamada gobolkaasi hadda ka jira iyo sida ciidamada ICE loo xakameeyey iyo sida uu Trump doonayay ay noqdeen kaaf iyo kala dheeri dadka intooda badan waxa la bartay ciidamada ICE gawaarida ay wataan iyo sida ay u egyihiin afka ayay xirtaan sidoo kalena waxa la arkay iyagoo gawaaridooda meel magaalada ka baxsan inta ay soo dhigtaan ama soo lugeynaya ama gawaari kale markaasi isticmaalaya dadka shacabka ah ee gobolkaasi si gaar ah magaalada Minneapolis ku nool ayaana u diidayay inay goobaha iyo sidoo kale goobaha ganacsiga ay gudaha u galaan kana agdhawaadaan iyadoo gawaaridooda lagu goynayo gawaari kale dadkuna ay markaasi muuqaalo ka duubayeen taasi oo keentay inay saameyntii ay rabeen inay gobolkaasi ku yeeshaan ay markaasi hoos u dhacdo si guudba saaxiibayaal wararka aanu gobolka Minnesota iyo guud ahaanba dalkaasi Mareykanka ka helayna waxa ay xaqiijinayaan in hadda ciidamada ICE ee qabanaya dadka Soomaaliyeed ay sharciyadu heleen inay markaasi gudaha u galaan goobaha ganacsiga oo ay ka qabtaan cidda ay doonayaan moolasha waaweyn ee gobolkaasi ku yaala ayay sidoo kale gudaha u gali karaan haddii aad ogeydin banaanka uu laga raadsanayo oo aad isu ilaalin jirtay oo aad goobta ganacsi iyo gurigaaga u dhaxaynaysay hadda goobtaada ganacsi iyo wadada waxa ay noqdeen ayaa la leeyahay isku si ayaana markaas lagaaga afduuban karaa lagaagana soo raadsan karaa waxayna arintaasi muujinaysaa cabsi weyn oo walwal leh dhinaca kale warar aanu ka helno gobolka ayaa waxa ay tilmaamayaan in hadda wixii ka dambeeya dadka Soomaalida iyo dadka aan Soomaalida ahaynba ee markaas loo maleeyo inaysan Mareykan ahayn ay hore u sii qaataan sharciyadooda rasmiga waxa la yiri waa markii ugu horeysay oo dadka Mareykanka ku nool ay hadda hore u qaataan kaarka ay baasaboorka u qaataan ama baasaboorka laftirkiisaba ay hore u sii qaataan maadaama waxa la tilmaamay ayba imaan karto inay ciidamadan ku afduubtaan aysan wax kasta meel gooni ay ku geystaan in dadkaagii iyo markaasi cidii ku dhaweey aad la xiriirto ayaa iyadana markaasi aad looga baqay taas oo keentay in dadka lagu waaliyo inay markaasi hore u qaataan baasaboorradooda oo haday ciidamada la kulmaan lana isku day la xiro inay afka ka galiyaan baasaboorka iyo sharciga citizenka ay markaasi haystaan hadaba saaxiibayaal waxa idin la wadaagayaa mid kamid ah odayaasha iyo sidoo kale aqoonyahanka deegaanka ama gobolkaas Minnesota muddo ku noolaa oo lagu magacaabo Faysal Dabarani kaas oo si qoto dheer markaas dadka Soomaaliyeed u baraarujiyay sidoo kalena bixiyay talaabooyin iyo tusaalooyin taariikhi ah oo ku salaysan marxaladii kala duwanaa ee gobolkaasi iyo dalka Mareykanka ay soo mareen dadka Soomaaliyeed ee magaalooyinka iyo kuwa gobolkaas deganba ayuu sidoo kale la dardaarmay hadaladiisina waxa kamid ahaa sida tan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله المقعي وحلا فيصل دبراني وحنا هيودياشا كم بده هيودياشا دكان مقالة مينيابوليس وحال كان بالحوجة إن ما دام حال ما أنت إن هيستا إيشون أي حركتي دقوني كدرجين مقال كيدون نجوب الطي إن بالحوجة مقارنة سا education material وحي خبرة الله هرولها iyo xoogan iskuuladii meelaha ka soo buusaday iyo xaaladan inaan isku tabaqo si aan dadkayga uga faa'iideeyo waa nasiib darro in madaxweynihii dalka aanu qadarin iyo mudan badan u haynay qaarkeena ay u fuudgareeyeen inuu maanta naaflagaadeeyo wax aad looga xumaado waxaan madaxweynaha u sheegayaa inuu kontonka gobol iyo dad ku nool cidday ahaanba ha noqdaane uu madaxweyne u yahay waxaan kaloo u sheegayaa in uu yahay madaxweynaha adduunyanaha dhan madaxweyne uu yahay sidaa daraaddeed waxaa fiis ka soo baxaa ay noqon karaan wax maxaan ku dhahdaa cidna wax yeeli kara cidna maxaan ku dhahdayay wax tari kara arrimaha maanta yaalla waa arrimahan aad uga dheregsanahay waxaa sheegaa maantana saan hore u sheego education material anugu taladin siin maayo lawyer meehi immigration lawyer meehi laakiin wixii aan ku dhaamo ayaan rabaa inaan xoogaa ka sheekeeyo waxyaalaha loo baahan yahay marka waxa weeyaan marka hore qofku inuu dardaarmo oo la dardaarmo haddii xaaskiisa la dardaarmo hadday gabar tahay oo oday qabana odaygeeda ay la dardaaranto haddii aan labadaa midna jirin in qofkii la dardaarmo dadka dad ugu dhow waliba dad u naxaya howshiisa ay geli kara oo ka dabeeman kara because marka lagu qafaasho waxa weeyaan xiriirdi waa laga qaaday gaarigaagii meeshaad kaga tagaysaa furuhaagii waxa laga meesha inaad kaga tagto salfoonkaaga haddii lagu xidho waxay ka mid waxyaalaha aan lagu ogolaan inaad isticmaasho marka waxaa loo baahan yahay dardaarankaaga haddaad xaas leedahay ama aad gabar tahay la qabo oo oday leedahay in marka laga reebo wixii idin dhexeeya dhaqaalaha ama tigsiga guriga danta guud
waxa u muhiimsan waxyaalaha ka tegayso AA numberkaaga ayaa ama alien numberkaaga ayaa u muhiimsan waayo waa habka hadhow tixraac lagu samayn karo oo loo loo weydiin karo meesha ay kugu hayaan iyo meesha laga soo raadinayo taas ayaduna runtii muhiima waana waa wax aad iyo aad u qiimo badan qaybta labaad waxa weeyaan waxaa jira organization number of it oo maxaa ku rahdaa ka mid ah organizationada ka howlgala Twin Cities magaciisana waxaa la yidhahdaa Human Rights Affairs waxay sameeyeen aabkaas oo kaa caawinaya in aad waxaa la yidhahdaa Ready Now aabkaas oo kaa caawinaya inaad macluumkaaga gashato sida alien numberkaaga oo kale waxaad ku soo darsan kartaa ciddaad rabto qofka supervisorka shaqada kuga soo ogaado in magaranaysa lagu xiray waxaad ku darsan kartaa lawyerkaaga waxaad ku soo darsan kartaa case managerka kula shaqeynaya haddii social kula shaqeynayo kale iyo cid alle ciddaad rabto haddii gabadhaadu joogto yar joogto ama wiilkaagu joogo cid alle ciddii ku danaynaysa waad ku darsan kartaa marka lagu qabtana hal badhan baad taabanaysaa taasina waxay u sheegaysaa inaad xidhan tahay dabeetana waxay u fududaynaysaa in lagaa daba yimaado arrinta labaad ee muhiimka ah oo rabo inaad yeeshaan waxa weeyaan waa inaydan u ogolaan in iridkaad ka furtaan ama gaariga xaq uma lahay ma furi karaan iridkaaga hadduu xidhan yahayna ma soo geli karaan iyagoon haysan waarankuna waa inuu noqdaa weliba waaran maxkamad laga soo gooyey mid maxkamad laga soo gooyey inuu noqdo weeyaan waa inaanu noqon mid xaggooda ka soo go'ay oo xagga administrationkooda ka soo go'ay waa inaanu noqon waa inuu ku seexan yahay xaakin ama magistrate waxa la yidhaahdo waa inuu ku seexan yahay intaa haddaan taa kaga gudbo waxaa kaloo muhiima waxaa kaloo aada muhiima in maxaan ku dhahdaayey madaxweynuhu ogaado waddankan in meel fog laga soo qabtay oo meeshaa laga soo qabtay ay ahayd meel slavery waddankan uu soo maray taariikh aada xun intaan ka xusuusanno markaan maanu joognay intaan ka maqalay ama ka bowsanay iskuullada iyo maxaan ku dhahdaa meelaha ka bowsanay taariikhdaasoo aada u xumayd taasoo ah in dadka baroonka ama balaaga ah iyo dadka caddaanka khaas ahaan xagga sawdka aan is xuquuq ahayn markaana qofka brownka ama qofka madowga waxaa la raba laga yeeli karo waxaan aada u xusuustaa taariikh aada foolxum oo dhacday waxay dhacday 1955 waxay ku dhacday Emil Till cunug yar 40 jira oo ka yimi dugsiga dhexe markaa ku jiray oo ka yimi magaalada Chicago oo adeerkii oo Mississippi jooga ugu yimi marka waxaa dhacday inuu dukaan soo galay maalin ka mid ah dabeetana waxaa la isdhex maray in gabadh dukaanka gadaysa markaa oo 22 jira oo Carol la odhan jiray magaceeda in uu ama si xun ula hadlay ama uu shukaansaday labada erey baa la isku hayaa laakiin lama garanayo warkii magaalada markuu soo galay ninkii qabay waa maqlay aad buu uga xumaaday maadaama markaa waqtiga ay jireen waxa la yiraahdo Jim Crow law sharcigaas oo ahaa sawdka ka dhiganaa oo ahaa qofka madow inaan xuquuq lahayn sidaa daraadeed maadaama xuquuq lahayn gabadh cadaan lama hadli karaba marka habeenada ka mid ah ayaa ninkii iyo walaalkii wiilkii guri adeerkii ku soo weerareen way ka haysteen way jirdileen xabad bay madaxa ka dhufteen jirkiisa qayb ka midna way googooyeen waxaana ku tuureen webigay ku tuureen dhowr cisho ka bacdina waa la helay wiilkii fuuray xabadna ku taalo jirkiisina qaar googo'an yahay arrintii waxaa dhacday marka in maxkamad markiiba la isla tegay meesha maxaa maxkamad iska tagaa dad aaminsan in qofka madow aan xuquuq lahayn waxay juuriga gaadheen in nimankaa la sii daayo wax dambiyan aana gelin arrintii islaantii hooyadiisa marka jaga loo geey la aasaayey dad aada u badan kumayaalba ka soo qayb galay way diiday in wiilkeeda kaaskiska isagoo ku jira loo daboolo si dadku arkaan dhibtii ku dhacday kiiskaas kiis adag buu ahaa kiisaskii u horreeyey civil rightska soo celiyey ayuu ahaa kiisaskii u horreeyey wuxuu ahaa ogolaaday in dadka loo ogolaado inay foodgareeyaan waxaynu ognahay waqtigii u horreeyey dadka foodka loo ogolaado inuu yahay 1965 xitaa dumarka caddaanka ku jiray oo loo ogolin beriga inay foodgareeyaan marka waddanka taariikhda leh in madaxweynuhu wuxuu ku hadlayo ka fiirsado ayaa ila fiican dad badan oo la jiitay baa jira dad badan oo Mareykan oo la joojiyay baa jira dad badan oo Mareykan oo sharci loo la istaajiyay baa jira oo la dhibaateeyay
de waxa lagu xigagtaanu garan maayo waxa markaa habboon in aad looyarada la hadashaan waxaad u qaban kartaanna waxa u horeeya sharciga la yidhaahdo habas carbas waxa weeyaan sharci ah in qofka detentionka ma garanaysaa si sharciga sifa sharciga loola dhaqmo hadduu xaq u leeyahayna beyl lagu soo daayo si isagoo bannaanka jooga oo sharcigiisii kale removalka ahaa markaa uga doodo iyaguna ay keenaan wixii ay qofka ku hayaan constitution rights bay leenahay dadka waxaa leeyahay constitution rightkiina ku dheganaada cidna ha ugu joojinna cabsida ku jirtaanna iska daaya maxaan ku dhahdaa wixii aad iscaawin kartaan iscaawiya dadka dhan oo ma garanaysaa cajam iyo carab iyo caddaanna ixtiraam u haya dadku waa dad walaala ah waxaana adduunka dee lagu nool yahay aan noolow anna aan noolaado cid arrintaa diidanna ma jirtaan filayaa waana idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa aqoon-yahan Faysal Dabrani oo tusaalooyin iyo sidoo kale waxyaabaha muhiimka inay dadka Soomaaliyeed ee gobolka ku sugan ay sameeyaan markaas dardaaran iyo marxaladii kala guuraya dalkaas soo maray dadka Soomaalida markaas u sheegayay waxa halkaas ka muuqata in xaaladdu marba mar ka dambaysa ay cirka sii gali karto taasi oo keenaysa inay markaas noqoto in wax walba ay isbedelaan ciidamada ICE ayaa la tilmaamayaa inay sameynayaan go'aano ka madax bannaan kuwii markaasi loo soo diray oo iyaga laftirkooda ay waxyaabo kala gedsan ku darsanayaan sidoo kale dadka Soomaalida ee gobolka Minnesota iyo guud ahaanba dalka Mareykanka ku nool waxa la ogeysiinaya ayaa la yiraahdo ama loogu baaqaya fariimo kala gedsan oo loo soo gudbiyay dad loo yaraana markaasi ayna la wadaageen in ay jiraan shakhsiyaad iyagu Mareykana guryahooda ku nool sidaas darteedna dad markaas magangalyo doonaha oo Soomaali ama qaraabo ay yihiin ay markaas dulsaar ku ahaayeen guryahooda dadkaasna addresska u qorani gurigaas uu qofka Soomaaliga ee muwaadinka Mareykanka uu markaas iska leeyahay ciidamadu waxa ay soo tixraaci karaan ayaa la yiraahdaa addresskaas waxa la yiraahdaa marka qofkaasi waxa uu xaq u leeyahay in uusan markaas waxa runta ah uu sheego horta waa mid koowaad waxa la yiri haddii ciidamadu ku weydiiyaan qofkaasi ma jira inaad tiraahdo wuu jiraa haddii uu jiro way hadduusan jirin de ma jiro haddii laakiin addresska qof magangalyo doon uu ku qornaa ha ka been sheegin ayaa la yiri dadka waxaad tiraahdaa qofkaas wuu jiraa hadday ku yiraahdaan ma jooga hadda iyo haddii ay ku yiraahdaan iyo hadduu jooginba labadaba markaas waa inaad u cadaysa ayaa la yiri inuu qofkaas guriga degan yahay oo uu joogo iyo inuu markaas ka maqan yahay hadduu xitaa magaalada banaankeeda uu ka guuray xaafadaada oo meel kale u wareegay anigu iga guuro qofkaas inaad dhahdo ayaa fiican ayaa la yiri wixii intaas ka dambeeya albaabka gurigaaga kama furi kartid ayaa la yiri ilaa iyo warqad sharci ah oo maxkamad markaas ka soo baxday ay haystaan maaha kuwa iyaga xafiisadooda ka soo baxay waa in warqad maxkamadeed ay ciidamadu markaas wataan waxaana la tilmaamay in hadallada badan marka ay wax ku weydiinayaan inaadan ka jawaabin oo aad weydiiso iyaga inay lawyerka qofkaas uu leeyahay la xiriiri karaan ama isaguba markaas uu la xiriiri karo wixii su'aalaha markaas lawyerkiisa la weydiiyo waxa la tilmaamay markasta oo ay su'aalo boobsiisa ku weydiiyaan oo aad ka jawaabto waxayba noqon kartaa adoo sharci la xitaa in wax lagu helo sidaas darteed waxa la tilmaamay qofka inuu markaas xuquuqdiisa garto oo uu xuquuqdiisa yaqaano oo nimankaas uusan afka u kala furin su'aalaha basic ama su'aalaha bilbilowga koowaad mooyeen wixii kale ee sharciyadaada iyo shakhsiyadaada iyo gurigaaga ku saabsan waxa la tilmaamay inaysan xaq u lahayn markaas inay maxkamad warqadeeda ay wataan oo ay ku tusaan mooyeen intaas ayaan saaxiib ku soo gabagabeynaya barnaamijkana xaaladda dalka Mareykanka iyo Soomaalidu waa iska qasan tahay in kasta oo saameyntii loo maleynayay in ciidamada ICE iyo sidoo kale hadalka madaxweynaha Trump uu markaas ku yeelan karo gobolkaasi la tilmaamayo inay hoos u dhacday oo sidii markii hore loo maleynayay aan sanahayn haddana waxa jira dad Soomaaliyeed oo markaasi caqabado waaweyn kula dareemaya waxa la tilmaamay dad in ka badan 20 sano ama 12 sanaba gobolkaasi ku noolaa oo markaas sharciyada yaryar haystay la qabtay oo hadda markaas ay gacanta ciidamada ay isku jiraan wax walba ayaana dhici kara ayaa leeyahay si guud basaaxibayaal waxaanu ku waaninaynaa in dadka magangalyo doonka sharciyo dhameystiran markaasi aysan haysanin inay hadda wixii ka dambeeya wadooyinka kaliya iyo gawaarida kaliya aysan iska fiirinin hadda xitaa goobahooda ganacsiga ay markaasi ilgooniya ay u yeeshaan maadaama ciidamadu ay heleen warqad ay goobaha ganacsiga intay kugu yimaadaan ay ka xiri karaan ama ay ka afduuban karaan muuqaalkan la sii wadaag
haddii uu jiro qof markaasi asxaabtaada ah oo gobolkaas iyo guud ahaan Mareykanka ku nool oo xaaladahan markaasi aad leedahay lama socdo sidoo kale muuqaalkeenan u sii gargaray dad badan si uu meel dheer u gaaro muuqaalkana la garay naguna soo biiro barteena YouTube-ka Magan Media subscribe ku samee si aad ula socoto akhbaaraadka caalamka oo aanu halkan si maalinle ah markaasi idinku soo gudbino Cabdiqaadir Maxamed ayaan ahay waa ku mahadsantiin la socodka iyo ku xirnaanta Magan Media inta kulmi doona muuqaalkeena xiga sidaas nabadgelyo